70 years ago, the nuclear bomb altered our reality forever. laga soo bilaabo sanadkii 2017 awoodda nukliyeerka ee Pakistan waxa dardar galiyay 5 warshadood oo kamid ah warshadaha tamarta nukliyeerka. Pakistan waa wadankii ugu horeeyay Muslim ee sameeysta nukliyeer. Komishanka tamarta atomiga ee Pakistan oo ah hay'adda dawliga ah ee sayniska iyo nukliyeerka ayaa mas'uul ka ah kaliya ka shaqeynta warshada korontada laga soo bilaabo sanadkii 2012. Korontada ay soo saarto warshada quwadda tamarta nukliyeerka 3.6 boqolkiiba awoodda koronto ee laga dhaliyo marka la barbar dhigo 62 shidaalka foostada iyo 33 boqolkiiba oo ka soo baxa quwadda biyaha Pakistan. Pakistan xubin kama ah heshiiska nukliyeerka ee loo yaqaan Non-Proliferation Treaty, laakiin waxay xubin ka tahay wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atomiga. Pakistan waxay qorsheynaysaa inay dhisato 32 warshadaha tamarta nukliyeerka marka la gaaro sanadka 2050. Aqoonyahan Professor Abdisalaan oo ahaa la taliyaha sayniska ee madaxweynaha Pakistan ayaa ku qanciyay in madaxweyne Ayub Khan inuu aasaaso awoodda nukliyeerka ee ugu horeeyay dalka Pakistan, waxaana loo yaqaanay Crack Nuclear Power Plant. 2 years later, the Japanese attacked Pearl Harbor. Komishanka tamarta atomiga oo haystay injineero ku takhasusay nukliyeerka ayaa madax ka noqday mashruuca Crack Nuclear Power Plant, waxayna shaqadiisu bilaabmatay sanadkii 1972 waxaana la caleema saaray madaxweynihii xilligaasi ee dalka Pakistan ee Zulfikar Ali iyo Munir Ahmed Khan oo ahaa gudoomiyaha tamarta atomiga. Kanab oo loo soo gaabiyo Crack Nuclear Power Plant oo hoos timaada ilaalinta caalamiga ah waxa laga shaqaysiiyay awood yar sanadkii 1969. Komishineero Faransiis iyo injineero atomiga iyo waliba boqortooyada Ingiriiska gaar ahaan qaybta nukliyeerka waxay qandaraas la galeen komishanka tamarta atomiga ee dalka Pakistan si ay u bixiyaan warshadaha tuutaha iyo nukliyeerka ee dalka Pakistan. Heshiis waliba injineerada komishanka tamarta atomiga waxay hormuud u ahaayeen nashqadeynta warshadaha korontada iyo tusida hilaalada hubka nukliyeerka, inkastoo BNFL iyo CEA ay bixiyeen lacagaha kaalmada farsamada iyo agabyada nukliyeerka ee shaqada mashruucyadaasi ma aysan bilaabin ilaa iyo sanadkii 1972. Natiijada ka dhalisay howlgalka indhaynta ee Hindiya si lama filaan ah ay u tijaabisay hubka nukliyeerka sanadkii 1974. BNFL waxay kansashay mashruucyadii ay la gashay komishanka tamarta atomiga ee dalka Pakistan. Agaasimayaashii mashruucaasina waxay ahaayeen Munir Ahmed Khan iyo Hafiz Qureshi. Waxay falcelin laga sameeyay kala kulmeen isku xidhka injineerada komishanka tamarta atomiga ee Pakistan iyo saynisyahanada dalkaasi. Sanadkii 1977 cadaadis u saaray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee xilligaasi Harry waxay baajisay mashaariicdii ay la lahayd komishanka tamarta atomiga ee Pakistan isla markiiba, waxaana meesha ka baxday caawimadii boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiiska. Injineerada komishanka tamarta atomiga ee Pakistan waxay dhamaystireen warshadaha canaasirta nukliyeerka ee loo yaqaanay New Labs iyo sidoo kale aaladaha sameeya platinum nuclear. Awoodda korontada ganacsiga ayaa gacanta waxa ku hayay komishanka tamarta atomiga ee Pakistan. Sanadkii 1989 Jamhuuriyadda dadka Shiinaha waxay heshiis la saxeexatay Pakistan si ay u siiso 300 oo megawatt oo warshadaha awoodda korontada ah, taasi oo hoos imanaysay ilaalinta IAEA. No one in the US has any idea how close the Soviets are to getting the bomb. sanadkii 1990 Faransiiska iyo Soofiyeedka labaduba waxay tixgeliyeen codsiga Pakistan ee ahaa in la siiyo warshadaha quwadda tamarta nukliyeerka ee hoos imanaya IAEA,
laakiin kadib markii safiirkii Mareykanka ee Pakistan uu muujiyay sida ay uga xun yihiin heshiiska dhex maray Midowgii Sofiyeeti iyo Faransiiska. Qandaraasyadaasina waa la kansalay sanadkii 2010. Shiinuhu waxa uu ballaariyay qandaraasyada Komishanka Tamarta Atomiga ee Pakistan, gacanna ka geysanayay dhismaha 3 warshadood ee korontada, waxaana la dhameeyay bishii Abriil sanadkii 2011 sababo la xiriira kororka baahida korontada. Dowladda Pakistan waxay amar ku siisay Komishanka Tamarta Atomiga ee dalka Pakistan inay dejiso warshadaha tamarta nukliyeerka ee dhulka, sida laga soo xigtay Komishanka Tamarta Atomiga ee Pakistan. Hadafkuna waa in la soo saaro 880 megawatt oo korontada marka la gaadho sanadka 2030. Ra'iisul Wasaare Yusuf Raza ayaa ku dhawaaqay siyaasadda tamarta Pakistan sanadkii 2010, halka warbixinta suurtagalnimada loo gudbiyay xogayaha ra'iisul wasaaraha. Deganaanshaha rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha Pakistan. Komishanka Tamarta Atomiga ee Pakistan waxay hadda qorsheynayaan inay hogaamiso dhismaha warshadaha tamarta ee nukliyeerka